magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxaa shalanimadii si weyn looga xusay 1 August oo ah maalintii dibadda loo taagay maamulka Puntland sanadii 1998 iyadoo ay ka soo wareegtay muddo 14 sano waxaa saaka subaxnimadii ciidamada daraawiishta iyo guutooyin ah soo dhaxmareen magaalada iyagoo isla markaana gaardinaya waxayna salaam ka qaateen madaxda gobolka ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Sanaag mudane Maxamuud Siciid Nuur Dabay taliyaha daraawiishta ciidamada gobolka Sanaag Abdullaahi Cumar Cashuur madax kale waxaa madashan la isugu yimid ugu horeyntii furay duqa degmada Cabdisaaq Axmed Ciise oo isagu ka jeediyay madasha khudbad dheer kuna booriyay dadweynaha reer Puntland in maanta loo baahan yahay in sidan mar walba loo xuso wuxuu ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Cabdisaaq Axmed Ciise khudbadii gudoomiyaha gobolka Sanaag mudane Maxamuud Siciid Nuur Dabay waxayna khudbadii haweenka madaxda gobolka madaxda degmada ciidamada qalabka sida haweenka xafladan ka soo qaybgalay waa salaamantiin salaam islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tobankii August sanad guuradii afariyo tobnaad Puntland ka soo wareegtay dhammaan maanta gobolada Puntland oo dhan ay istaaga ka jirto xaflada kuwa kan lamida iyo kuwa kale oo maaragtay gaadis waa maalin taariikhi ah waa maalintii ay dhalatay dowladda Puntland oo saakayna hadda sanad guuradeeda ugu fadhino 14 ka soo wareegtay ayana ka hadla saaka xafladda 14 guurada Puntland kaga faa'iideysto inaan ka hadlo nabadda waxaan kaga hadlayaa halka kan waxa degan dad is yaqaana oo gobolka Sanaag u dhashay حاجة أنت وطالب قبل كسناك قايل شيء الصوماليا قايلين شيء محيط الصوماليا عندك الصومالي هو نقلنا إلا يساعد حاجة والله يرويلات إلا يعل ظاهر أنت كسر كيسة قبل كسناك وحش وضي يغنوا تذكروا ولا إني تي والله المعدر وإن ورد دارتي وإن اسم الشيء وإن سكول الحلال مركا واحد كان لنا إياك dagaalkoodana waa la yaqaanaa marka iyagoo xiska laayaan oo xiska dagaalamaan heshiiskoodana waa la yaqaanaa laakiin haddii la soo dhex galo ama la sameeyo abqaar lagu soo galo waddanka oo horseed laga noqdo dalka in la soo geliyo ciido badan berri ka maalin cawaaqibkooda way arki doonaan waynu is ognahay ummad fara badan baa noocaa ku shaqaysa waxaanu leenahay dadkiina masaakiinta ee nabadda jecel ee dalkooda leh kuwaasoo kale inaad iska ilaaliso waa ka baryaynaa ilaah uma doonayno dhibaato iyo maxay ahayto dagaal iyo mushkulad iyo waxaan anagoo waxbaran weyna iyadoo aan malcamadaha iyo waxaan Soomaaliya hayraacdo hadidowdo ayaa waxaa kaloo ka hadlay gaashaano sare Abdullaahi Cumar Cashuur taliyaha qaybta booliska Baran Cabdixakiin Maxamed Liibaan taliyaha wasiirka arrimaha gudaha Axmed Maxamed Nuur dhanka haweenka ayaa waxaa ka hadlay abwaanad Xaawo Maxamed Xujaale oo iyadu madasha ka akhriday tix buraanbura oo ku saabsan 14 sano guuradii Puntland sidoo kale waxaa xalay habeennimadii ka dhacday xaflad weyn oo ah hidiya dhaqan guriga gobolka waxaana gabdhaha iyo haweenka soo bandhigeen ciyaaraha hidiya dhaqanka ciyaaruhu iyo tamaashaadku ay dhamaadeen ayaa waxaa madashan ka hadlay
haween dhalinyaro waxaa kaloo madashan lagu guddoonsiiyey koob 2 naadi oo maanta ciyaaray taasoo lagu maamuusayay xuska 1 August maalinta dhidibada loo taagay maamulka Puntland waxaa guddoonsiiyey gudoomiyaha gobolka Sanaag mudane Maxamuud Siciid Nuur Dabay isku soo wada duubo xuskan 1 August 2012 ayaa ahaa kii ugu weynaa ee badan lagu qabto tan iyo intii ay jirtay Cabdirasaaq Cali Bedel badan